بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد walaalayaal waxaad kusoo dhawaataan xalqadihii ka koobnaa ee aan uga hadlaynay sidii aan uga faa'iidaysan lahayn bisha ramadaan ee barakaysan xalqadii tan ka horreysay waxaan kaga soo hadalnay aadaabta qofka sooman looga baahan yahay ama aadaabta soomka uu leeyahay qaybteedii aadaabu siyaam alwaajiba qaybtan waxaan sii wadi doonaa aadaabu siyaam almustaxaba yani aadaabta soomka ee wanaagsan ee qofka sooman laga rabo in uu runtii joogteeyo oo uu ku dhaqmo oo haddana yani uu fuliyo aadaabtaasi waxa weeye ma aragtay yani suxuurta oo kale in la suxuurto dad baan suxuuran oo hurdada ayay ka fadilaan oo waxay leeyihin ma suxuuran karno hurdada kama soo toosi karno suxuurta waxa weeyaan awalan waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wassalaam isagaa ma aragtay inoo jideeyey oo wuxuu yidhi tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta baraka ayay leedahay qasadku ma aha cunto badan inaad cunto wax un inaad xataa kabasho biyo aad kabataba allah ka dhigo ama 3 timir ood cunto allah ka dhigo wax un inaad cunto maxaa yeelay suxuurta waxay ku siinaysaa awood iyo ma aragtay quwa maalinka aad sooman tahay sidaa darteed inaan ma aragtay liska daynin oo suxuurta yani la suxuurto waxay ka mid tahay aadaabta siyaamka ee mustaxabada ee haddana yani ay noqonayso qofka inuu soomkiisu noqdo mid waafaqsan hadyigii nebiga iyo sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u soomay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka sidoo kale imaam muslim xadiid camr ibn caas uu warinayo wuxuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklat saxr yani waxa weeyaan soonkeena iyo soonka dadka ahlukitaabka farqiga u dhexeeya waxa weeye inaan anaga suxuuranayno oo soonka yani suxuur hortii habeenkii intaan ma aragtay yani waagu baryin weliba suxuurta in la dib dhigo ma aragtay yani waqtiga ugu dambeeya oo yani salaada yani fajarka inta laga gaarayo intaas weliba ma aragtay la suxuurto aadaabta soomka ah ee iyadana mustaxabada ah ee wanaagsan waxa weeye tacjiilu lfitr haddii la hubsado qoraxda inay dhacday in horey laga afuro dad baa maanta o dhan waxay leeyihin weli si fiican ha loo hubsado ha lagu daro yani qaar waxay yidhahdaan xaadi baa la arkaa iyo wax saas oo kale ah waxyaaba khuraafaada ayay maaragtay sheegaan qoraxda haddii ay caddaato inay dhacday waxaweyaan waa la afuraya in la dedejiyo afurkana waxay ka mid tahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yazaalu nnaasu bikhayr maa cajalu lfitra dadku khayr ka tegi maayaan intay khayr yani ma aragtay dedejinayaan maxay intay dedejinayaan afurka intay dedejinayaan khayr bay ku sugan yihiin marka afurkana in la dedejiyo ayaa ka mid a aadaabta soomka ee ma aragtay mustaxabada ee wanaagsan aadaabta soomka ee wanaagsan waxaa kaloo ka mid a inuu qofka soonkiisa intuu sooman yahay uga faa'iidaysto qur'aanka akhrintiisa xuska ilaahay inuu in badan baryo sadaqo inuu la baxo yani salaado fara badan inuu tukado salaadii duxada iyo ma aragtay yani salaadii yani muxuu ahaa salaadaha rawaatibta haddii usan hore u tukan jirin yani inuu khayr ka badsado sadaqada walow maalintiiba dollar uu bixiyaba ha noqotee $1 uu maalin walba bixiyo 30 maalmood waxa weeye yani inuu aad iyo aad ugu dadaalo maxaa yeelay sadaqada bisha ramadaan way ka fadli badan tahay bilaha kale oo dhan marka inuu qofku uusan soo marin maalin ilaa inuu wax sadaqaysto ilaa in qur-aanka uu akhriyo inuu ilaahay subxana wa tacaala in badan xuso inuu ducaysto aadaabtaasoo dhan waxa weeyaan ma aragtay yani waxay ka mid tahay aadaabta siyaamka ee mustaxabada aadaabta siyaamka ee wanaagsan waxaa kaloo ka mid ah an yastaxdira asaa'im qadra nicmat illahi calayhi bisiyaam inuu bal ka fekero oo uu xaadirsado ilaahay ugu shukriyo nicmada ilaahay uu siiyey weyninkeedii oo soonku ka mid yahay oo maarata ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celiyo yani aadaabta noocaas oo kale ah waxay oo la dhammaystiro tii waajibka ahayd iyo tii sunnada ahaydba waxay keenaysaa inuu soonkaagu noqdo mid waafaqsan hadyigii nebiga
aadna noqoto qof u soomay sidii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu soomay maxaa yeeley ilaahay subxana watacala wuxuuna amray nebigiis inaan ku dayanno qaala tacaala laqad kana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana ilahay wuxuu yihi rasuulki ilahay waxaa idinkugu sugan ku dayasho wanaagsan hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh